السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channel كيني Eduxom oo aan wadnay taxanihii waxbarashada programming khaasatan qaybta la yiraahdo object oriented programming ee C#. waxaad niyada gashataa in ay jiraan afar qaab oo loo fakaro marka aad laga hadlayo object oriented programming ama aad sameynayso class. waxa ay leeyihiin magacyo caalami ah afarta qaybood oo loo kala yaqaano abstraction, polymorphism, inheritance iyo encapsulation. haddaan soo gaabino sida ugu fiican oo aad u xasuusan karto waa APIE ama API. waxa casharkeena uu ku saabsan yahay maanta abstraction. runtii waxba yuusan ku yaab gelin ereyga abstraction. waxaad isticmaashaa maalin kasta. haddii aan dhahno ereyga Ingiriisiga ah ee person, waa fahmaysaa waxa aan ka wado. laakiin hase yeeshee ma aanan sii faahfaahin oo ma aanan sheegin oo ma aan oran ninba mise qof dumar ah, male ama female. tilmaanteeda waad fahantay laakiin ma aan sii faahfaahin. sidaa daraaddeed marka lagu yiraahdo abstraction waxa weeye muhiimadda ereyga ayaad ka raacaysaa adigoo aanan sii gudagelin marka laga hadlayo ereyga abstraction. marka waxaad ogaataa haddii aan samayno class magaciisa la yiraahdo person, macnaheedu waa iska fahan person waxa hoos iman kara. haddii aan u soo qaadano tusaale camera, cameradu waxay leedahay sidaan u jeedno botoomo kala duwan, mid zoom in iyo zoom out, botoon laga sameeyo flash oo flashku ka dhaco, botoon aad ka adjust gareyn karto auto focuska. botoomadaas banaanka kor ku yaala ayuu isticmaalaya qofka camerada soo iibsaday, laakiin muhiim uguma fadhido waxa gudaha ku jira electronically si isugu xiran yihiin. sidaa daraaddeed abstraction haddaan maqasho macnaheedu waxa weeye muhiimadda waxaanu saaraynaa waxa soo baxaya ama waxa dhalanaya ama natiijada, laakiin waxa gudaha ku jira annaga nama khuseeyaan. in yar ila fiiriya koodkan ee ku qoran luqadda C#. waxaan ku qoray abstract class camera. abstraction wayaan classkani maadaama muhiimadda aan ka leenahay waxa weeye waxa classkaas uu noo qaban karo, laakiinse sidoo u qabanayo muhiim nooma ah. laakiin haddaanu fiirino qaybtan aan ku qornay encapsulation oo u imaan doona waxa ay tahay waxa weeye encapsulationku waxa uu dheereysanaya ama uu extension ku sameynaya, extend ku sameeyay classka camera asaga oo u bixiyay classka labaad camera zoom u bixiyay. waxaa halkan ugu eeg casharkeena ku saabsanaa abstraction. waxaan u gudbi doonaa qodobka ku xiga casharkeena soo socda. waxaan idin leenahay insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.